markale arday chapter keeni health and disease oo inu ka soo hadalnay qaybtiisa koowaad ee common disease cudurrada guud inagoo u soo qaybsanay 2 cashir maanta waxaynu bilaabaynaa haduu ilaahay yiraahdo cashirkeeni saddexaad lesson 3 ee ka hadlaya immunity waxaanu cashirkaani markii uu dhamaaday kadib arday kasta wuxuu awood u yeelan doonaa in uu qeexi karo the term immunity eray bixinta immunity difaaca jirka sidoo kale wuxuu awood u yeelan doonaa inuu sharaxaad ka bixin karo types of immunity qaybaha uu qaybsamo immunity-ga difaaca jirka sidoo kale wuxuu ardayga baran doonaa sharaxaadna uu ka bixin doonaa fahmi doonaana vaccination talaalka iyo sida uu yahay iyo waxa uu jirka u qabto hadaba cashirkeena koowaad immunity waxaan ka soo hadalnay in cudurradu ay qofka bini'aadamka ku dhacaan ay sababaan wax la yiraahdo microorganisms aynu ku sheegnay noolayaal ilmaaragta ah uu ka mid yahay bakteeriyada viruska funguska iyo protozoaha hadaba qofka bini'aadamka waxaan arkaynaa 2 arday ee wada joogta fasal midna markuu xanuunka ku dhaco hargab ama wax la mid ah inuu muddo ku xanuunsanayo waqti dheer uu ku qaadanayo halka arday kale oo si degdeg ah recover ku sameeyay awoodda uu ku yeeshay in uu iska caabiyo xanuunkaasi ama in cudurro markay safmar dilaacaan ay dad ardaqa ilmo qaar ay ku dhacaan caruurta kuwana ay ku dhici waayaan waxa sabab oo ah qofkaasi waxa uu haystaa wax la yiraahdo immunity hadaba aynu baranno waa maxay immunity muxuu yahay difaaca jirka immunity-gu iska caabintu maxay tahay immunity-gu is the ability wa awooda of our body jirkeenu to protect oo isaga difaacayo against disease xanuunka inuu soo wajaho qofkii inuu xanuunka ku dhaco awoodda isaga celinayo ayaa la yiraahdaa immunity nooluhu awoodda uu leeyahay inuu ka survive garoobo xanuunka ee awooddaasi jirkiisa ay leedahay ayaa la yiraahdaa immunity kelmad waxa jirta la yiraahdo immune response ayadana waa inaan ereyga baranaa muxuu yahay waa falgal kasta oo nooluhu sameeyo jirkiisa si uu la dagaalamo shayalaha ajnabiga ah ee jirka soo galayo ama si kale hadaan u dhahno antigen oo micnaheedu yahay lid jir dhaliyaha ee la socdo jeermiska inuu jawaabta laga bixinayo marka uu habdhiskeena difaacu uu jawaab celinayo ayaa la yiraahdaa immune response jirka waxa soo galay bacteria waa receptor waa la qabtay waxa lagu sameeyay attract oo la soo ogaaday kadibna engulf taas jawaabtaasi ayaa la yiraahdaa immune response hadaba waxa jirta cilmiga lagu barto immunology-ga immune system immuneka ama immune system-ka habdhiska difaaca jirka qaybta biology-ga lagu barto waxa la yiraahdaa immunology is the study wa barashada of immune system habdhiska difaaca jirka ayaa lagu bartaa waxaan arki doonaa inta ku guda jirnaa cashirkeena antibody iyo antigen labada eray waxaan rabaa inaad kala barataan ardayay antibodies waa nooc ka mid ah borotiinada af Soomaaliga waxa la yiraahdaa lid jir gale halka antigen uu yahay foreign substance shayalo ajnabi ah jirka soo galayo ee inta badan la socdo jeermiska ama pathogenka isagana afka Soomaaliga waxa la yiraahdaa lid jir dhaliye antibodies is type of protein waa nooc ka mid ah proteinka made by lagu sameeyo white blood cells WBC ama leukocytes unugyada dhiigga cadcad which helps waxayna ka caawiyaan jirkeena to destroy inay burburiyaan pathogens cudur dhaliyaasha dad inta kuwaas soo galaya the body jirkeena waayahay hadaba hadaynu fahanay immunity waa maxay immunity-gu inay tahay awoodda uu jirkeenu isaga caabin karo cudurrada hadaba noocyada uu qaybsamo immunity-ga ayaynu isla baranaynaa types of immunity waxaan u qaybinaynaa 2 qaybood qaybta koowaad waxaan dhahaynaa innate immunity innate yani innate waa difaaca uu qofka leeyahay kaasoo uu ku dhashay innate waxaan kala dhihi karnaa inherited immunity waa difaaca jirka uu leeyahay ee ugu yimi hidda ahaan ugu yimi innate uu ku dhashay kan labaadna ee nooca immunity wuxuu noqonayaa acquired immunity waa nooca difaaca jirkeena uu helay acquired waa artificial waa mid uu kasbasho ku yimi midka horena
mid u dhalasho ah innate immunity haddaba innate immunity-gu muxuu yahay is a type of immunity waa nooc ka mid ah difaaca jirka that one is born with taasoo uu qofka ku dhasho halka acquired immunity-na ay tahay has been acquired waa mid lagu helay artificially si gacan ku samaysa waxaan fahanay in immunity-ga loo qaybiyo labo mid u dhalasho ah iyo mid kasbasho ah kan u dhalashada waa midka qofka uu si heredity ahaan inheritance ahaan uu leeyahay oo uu ku dhasho kan kalena waa mid bini aadanka ay sameeyeen si artificially ah haddaba acquired immunity waxaan u qaybinaynaa labo mid natural acquired immunity oo si dabiici ah uu qofka u helo iyo mid artificial acquired immunity asagoo immunity-gan acquired immunity ah ayaa waxaa jiro mid uu helayaa isagoo acquired balse muddo wixii ka dambeeyay dib dambe uma soo noqonayso inuu u baahdo sababtoo jirkiisa ayaa si dabiici ah u baranayo markii hore wuxuu acquired immunity balse dib dambe hadduu xanuunkii soo noqdo markii la barto kadib jirku iska caabinayaa taasi waxaan u naqaanaa natural acquired immunity halka artificial acquired immunity ay tahay mid iyaduna gacan ku samaysa haddaan dabcan fiirino marka aan leenahay natural acquired immunity-gu oo sida dabiiciga oo qofku u helayo waxaan u kala saaraynaa labo inay tahay active iyo inay tahay passive maxaan ula jeednaa active waxaan ula jeednaa active waa marka immunity-ga qofka uu samaysto jirkiisa marka uu la kulmay injection kadib oo sidee waxaa lagu duray weakened pathogen xanuun cudurkani tusaale cudurka la yiraahdo measleska ayaa pathogenkiisa ee dhaliyo cudur dhaliyaha sababiyo oo weak ah ama dead ah ayaa jirka qofka lagu duray waa la baray jirkaasi wuxuu awood u yeelan doonaa in uu hadhow hormariyo difaacaasi u yeelanayaan dhehena active natural acquired immunity sababta wuxuu ugu yimi by injection kadib ayuu jirkiisu bartay halka tahay passive kuna wuxuu kaga duwan yahay active-ka passive-ku wuxuu kaga imaanayaa noolo kale kan isaga jirkiisa sameeysta active-ka waxa lagu diray antigen waxa lagu diray pathogen oo weak ah oo xanuunka sababay jirka uu bartay waxa laga siiyay vaccination aan dhihi karnaa talaal qofka waa la talaal maxaa loo talaalayaa waxa loo talaalayaa jirkan inuu barto xanuunkani markuu dhaco hadhow saf markaa uu imaado in awood uu u yeesho jirka inuu iska celiyo habkaasi ayaa la yiraahdaa natural acquired immunity oo active ah passive-kuna waa is the immune developed when antibodies waa immune-ka la samaysto marka difaac lidjirgalaha jirkeenu uu uga yimaado antibodiga uu leeyahay from another individual kale tusaale hooyada ayaa ilmaheeda u gudbisay difaaca jirka intuu ku jiray uurka sidaas daraadeed passive immunity waaye waana natural haddaba hababka mechanism-ka oo defense-ga uu ku dhacay difaaca jirkeena waa 3 main line waa saddex khad oo difaac ayaa jira ee cudurrada marka la iska celinayo difaaca kan koowaad waa mechanical defense in jirkeena loo difaaco hab physically ah oo yaa difaacayo maqaarka skinka iyo in loo difaaco chemical defense hab kiimikooyin ah oo in caloosha stomachta ay soo dayso acid-ka la yiraahdo hydrochloric acid oo very acidic-kiisa strong acid ah hadhowna burburiyo wixii pathogens ay ku dhex jiray labadan waa mechanical defense iyo chemical defense waxaa la isku dhahaa first line defense difaaca koowaad ee jirka difaaca saddexaad line-ka waxaa la yiraahdaa cellular defense in jirkeenu qaab unugya ahaan uu u difaaco waxaa la yiraahdaa second line defense difaaca labaad ee jirka difaaca labaad ee jirka waa qaybta aan baran doono waxaa qabanayo white blood cells unugyada dhiigga cadcad ama loo yaqaano leukocytes waa the second line of defense difaaca labaad ee jirkeenu waana cellka unuga white blood cells waxay difaacaan jirkeena laba hab in by engulfing in ay liqaan oo ay burburiyaan microorganism noolaha ilma aragta maxaan ka wadnaa microorganism waxaan ka wadnaa pathogen-ka markaan noolaha ilma aragtada microbes-ka ee xanuunada dhaliyo habkaasi koow in ay engulfi ku sameeyaan or ama by producing antibody markay engulfi ku sameynayaan nooca white blood cell-ka shaqadaas qabanaya waxaa la yiraahdaa macrophages waanu arkaynaa marka labaad waxay soo daanayaan antibody difaaca jirka which cause kaasoo sababaya the pathogen to be destroyed in cudur dhaliyaha la burburiyo markaana waxaa arrintan inoo kan hore waxaa inoo qabanaya phagocytes kana waxaa inoo qabanayo lymphocytes waan arkaynaa noocyada white blood cell-ka waxaanu kala saaraynaa labo
unugyada difaaca jirkeena ee white-ka waxaa loo saaraa labo phagocytes magacaasaa ka dareemaysiin kelmadda phago means waa engulf in la liqo sidoo kale waxaa loo kala qaybiyaa qaybta labaadna lymphocyteska labadaas qaybood ayaa white blood cell ku kala saaraynaa phagocyteska waxay noo yeelan doonaan group cells ka kooban la yiraahdo macrophages iyo sidoo kale neutrophils labadaasna waan baranaynaa insha Allah lymphocyteska waxaa loo kala saaraa labo T cells oo laga wado T lymphocytes iyo B cells oo laga wado B lymphocytes markaan leenahay T lymphocytes waa lymphocyteska bone marrow laga soo saaro balse ku qaangaaro in the thymus gland halka B lymphocyteskana bone marrow laga soo saaraa balse they mature in the bone marrow misna ku qaangaarayaan lagana soo saaraya T cellska ayaan waxaan u kala saaraynaa labo T killer cells iyo T helper cells waaya pathogenska habka uu jirkeena ku soo galayo marka uu jirka pathogen soo galo habdhiska aynu dhahanay difaaca jirkeena waa uu aqoonsanayaa recognize wuxuu garanayaa foreign antigen lid jir dhaliyaha soo galay jirka on the surface of the pathogen antigen kana wuxuu saaran yahay bacteria soo gashay ama viruska soo galay dushiisa proteinada ayaa dareemayaan kadibna waa la qaadayaa cellska la geenayaa halkaasi markay saa u dhacdo laba arrin dhici karto in ay dhacdo processka la yiraahdo phagocytosis oo laga wado phago oo eating ah cytosis oo cell ah oo cell eating inay dhacdo white blood cell inay germs ka hareereyso ay gabigiisa laqdo engulf pathogen kadibna and destroy them gabi ahaantiisba ay u dhamayso mar labaad waxaa dhici karta in immune response la sameeyo falcelinta ay ka dhacdo lymphocyteska marka hadda waxay ka dhaceysay phagocyteska ka dhaceysay lymphocyteska markay ka dhacdo iyagu waxay awood u leeyihiin produce inay soo daayaan antibodies hadhow iyagu waxay ku fiican yihiin waxay leeyihiin memory cells ayaa jiro oo ay aqoonsanaanayaan weligood xanuunkani hadduu dibdib ka soo noqdo labadaas ayaa dhici karto haddii ay dhacdo immune response-gu pathogenisku waxay qabanayaan pathogenisku bind waxay ku dhagayaan together with phagocytes and engulfing them kadibna waa ilaqayaan ama waxaa dhacaysa in antibodiesku bind ay ku dhagaan to pathogen cause them ay ku sababto to generate inay cariyaan and die inay baabi'iyaan to and die ay dhintaan waayahay habkaas ay jirku ku soo galaa waxay ka jawaabayaan response sameynaya waa white blood cell phagocyteska aan sheegna waa nooc ka mid ah unugyada dhiigga cadaad kuwaasoo engulf laqaan and eats pathogens that enter the body horaan usoo sheegnay phagocytesku waxay awood u leeyihiin in ay germska hareereeyaan kadibna ay laqaan waxaan u kala saarnay macrophage iyo neutrophil waxaan rabaa ardayda inaan wax yar idinka sheego macrophages iyo neutrophils maxay kala duwan yihiin macrophagesku waa larger than neutrophilku way ka ballaaran yihiin sidoo kale neutrophilka iyagu laakiin tira badnida iyaga badan 60% jirkeena white blood cellska laga helo waa neutrophils markii la eego xagga life spanka macrophages waxay awood u leeyihiin inay noolaadaan long lived while neutrophils kuna inay ahaadaan short lived kuwa muddo kooban noolaado phagocytosis processka aan dhahnay waxaa germska ayaa lagu liqaa muxuu yahay waa the process by which habka white blood cells engulfs and eats pathogen waa habka ay pathogenka ku hareereeyaan kadibna ay ku laqaan ay ku burburiyaan pathogenkaasoo that invade the body jirka soo galayo kadibna doonayay and cause inuu ku sababo infection marka processkaas lagu baabi'inayo ayaa la yiraahdaa phagocytosis waxaa jira heerar uu ku dhaco stage uu phagocytosis ku dhaco stage-ka koowaad bacteriyada soo gasha jirka ayaa attracted waxay la falgelaysaa attracted ku sameynaysaa soo jiidanaysaa to the membrane of the neutrophil neutrophilska darbigiisa ayay qabsanaysaa bacteriyada wakaa halkaa taal labadaas aan ka dhignay gudgudan neutrophilkana halkaas yaala stage-ka koowaad bacteriyada iyo waxay istaabanayaan neutrophilka stage-ka labaad phagocytosiska neutrophilska ayaa engulf waxay liqayaan ay hareereynayaan bacteriyada sida sawirkaasi ama animationka muuqaalka dhaqdhaqaaqa kaaga muuqda labadooda white blood cell gaar ahaan neutrophilka ayaa soo dhaqaaqay wuxuu isku hareereeyay bacteria kadibna engulf waa uu liqay oo waa uu burburiyay stage-ka saddexaad one is in the neutrophil markii gudaha neutrophilka la keeno oo la liqo
waxaa gudaha neutrophilska laga helayaa lysosomes aynu ku baranay inay yihiin digestive chemicals wax burburiyo will form ayaa samaysmayo these lysosomesna make waxay ka dhigayaan their way towards phagosome phagosomku waa dabcan sawirkaas ku wareegsan daarkaas wareegsan ee vacuole-ka oo eg vacuole of the white blood cell-ka ayaa waxaa la yidhahdaa phagosome phagosomkaasi ayaa waxay ku dhex galayo bacteriyadii ama germiskii la waday ama pathogenkii lysosomka ku dhex jireen ayaa isku dhex burburinayo kadibna waxaa dhacayso inaan u gudubno stageka afaraad oo noqonaya lysosomics will fuse waxay ku dhalaalayaan the pathogen sida sawirka idin kaga muuqdo lysosomki ayaa waxay isku hareereeyeen pathogenkii kadibna stageka shanaad bacteria will be killed bacteriada waa la dilayaa undigested waxaa burburinayo by enzymes dheecaanadii laga soo daayey lysosomka because maxaa yeelay lyso means waa breakdown lysosomesku waa organelka ay ku dhex jiraan enzymeska wax burburiyo haddaynu usoo gudubno lymphocyteska ee ahaa qaybta labaad ee aan u kala saarnay markii aan u ka bixinaynay lymphocytesku iyagu produce waxay soo saaraan antibody-gu isagu wuxuu kaga duwan yahay phagocytesku can recognize waa uu garanayaa markii uu soo galo antigenka lidjirgalaha no antigenku waa lidjir dhaliyaha kadibna and destroy antibody-ga ah lidjirgale and destroy waxay burburin doonaan a specific germ nooca jermiska cudur dhaliyaha soo galay marka lymphocyteska iyaguna sidaas ayay u shaqeeyaan way ka yar yihiin phagocyteska aan ka sheekeynayna muuqaal ahaan maxaa yeelay they have a large nucleus that fills most of the cell maxaa yeelay cellka intiisa badan waxaa ku hareeraysan nucleus ee uu leeyahay lymphocyteska waxaan u kala saarnaa labo b lymphocytes oo loo yaqaano b cells oo aan dhahnay bone marrowga ayay ku qangaaraan iyo t lymphocytes oo magaca t waxay ku qaateen thymus glandiga ayay ku qangaaraan b lymphocyteska produce waxay soo saaraan in the bone marrow ayaa laga soo saaraa intee lagu sameeyaa produce in the bone marrow balse and remain bone marrow until they are mature ilaa ay ka qangaaraan weligood waxay ku qangaaraan inay dhex fadhinayaan in the bone marrow dhooxa wayna laga soo saaraa wayna ku qangaaraan halka t lymphocytesku laga soo saaro in the bone marrow dhooxa balse mature waxay ku qangaaraan in the thymus gland qanjirka thymuska sidaas ayayna magacaasi ku qaateen waxaan usoo gudbaynaa qaybta xigta isla cashirkeennan saddexaad ee ka hadlaysa vaccination waxaa la yidhahdaa tallaal markii ugu horreysay tallaal waxaa hindisay ama soo saaray Edward Jenner isagoo adeegsanayay cowpox magaca vaccination waa processka dabcan tallaalidda laakiin vaccine ayaa ah tallaalku waxaa laga keenay cowpoxka loo yaqaano vaccinia magacaas ayuu ku qaatay is an artificial way waa hab artificial oo gacan ku sameeysa making our body jirkeena ku sameynaysto produce inuu soo saaro antibodies difaacida jirka against pathogen isagoo ka soo horjeeda cudur dhaliyaasha maxaan ku kala garanaynaa vaccination iyo vaccine is a substance waa shay that introduced lagu keenayo antibody jirka la keenayo waa shayga maadada chemicals talaalka la sameeyey vaccination waa processki kaasoo to prevent si looga hortago against infectionska and helpiska naga caawinayo to increase inuu ziyaadiyo immune system waxaa loo siinayaa talaalka ilmaha iyo weliba inta da'da loogu talagalay si hadhow markuu xanuun imaado ay isaga caabiyaan vaccinesku waxaa laga diyaariyaa laba hab in laga keeno dead microorganisms la dilay kadibna aad la adeegsado si jirka loo baro ama weakened microbes ama microbes la daciifiyey oo hadhow jirku overcome uu ka adkaan karo markii lagu mudo jirka uu galo exercise ugu dambeyn ardayay waxaan rabnaa in aad ka soo shaqaysaan exercise-kan idinkoo dib u dhageysanayo una daalacanaya cashirkeennii hore waxaad qeexaysiin the following terms erey bixinta soo socoto ee kale ah waa maxay immunology iyo vaccination sidoo kale ardayay waxaad kala saaraysiin labada erey bixin ee kale ah antibody iyo antigen labadan kelmad maxay u kala taagan yihiin sidoo kale waxaad magacaabaysiin ama taxaysiin types of immunity noocyada immunity-gu difaaca jirka ugu qaybsamo adigoo mid walbana ka bixinaya sharaxaad kooban السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبتر كني هالكاس أيو إنه